nimankii Caaisho kufsaday ma dhinteen mise waa nool yihiin waa su'aal meesha taagan weey ma nool yihiin mise waa dhinteen nimankii Caaisho kufsaday waa nool yihiin xaqiiqada jirtaan oo maanta in ay idin la wadaago waa nool yihiin maalinkii odaga idaacadda la soo fariisiyay TV-ga idaacadaha TV-ga Puntland la soo fariisiyay ee la dhahayay oday Ilyas la dhahayay hadal ee idaacadda ka hadal ee waxa tiraahdaa nimankii aniga taabtay oo qoorta ka taabtay adduunka lama arag qof aada arag oo la leeyahay waxa qoorta ka taabtay odagaas xabad baa lagu hayay waa la dul taagnaa waxa lagu qasbay inuu qirto oo yiraahdo waxa weeye nimankii waa la dilay inuu yiraahdo odaga waa lagu qasbay Aaba Ilyas xaaladdiisu halkaas ay maraysaa waxa idinku dhaaranayaa maalinkii la lahaa nimanka saaka la dilayaa in nimanka la qaaday magaalada Galboos laga dhoofiyay oo waxa way maanta ay dimaaraadka joogan ay joogan meesha la yiraahdo Turkiga ay joogan diyaarad baa ka qaaday Booso imaaraadka transit ku ahayd waa laga sii qaaday Turkiga magaalada Istanbul la yiraahdo bay labadaas nin joogan hadda ogtihiin iyo hadii kalab ninka la leeyahay arrinkiisa waa laga hadlayaa nin meesha ku jira ma ahan shakhsi la hayo oo meesha ku jira ma aha dadka Soomaaliyeed intaas sarreeyna u sheego hadii dad baa waxay soo qorayaan marxuum weeye nimanku waa dhinteen wallahi sadhiman billahi inay sadhiman waa inay dhaaranaya kitaab baa waxa idinku marayaa nimankaas inay nool yihiin waa arrin loo baahan yahay in laga hadlo dadka Soomaaliyeed u istaagaan oo ka hadlaan oo la yiraahdo waa nimanka aan lahaydin waa dhinteen oo la leeyahay waa la toogtay annaga sawiraantii 2016 17 noo soo dirinay ayagoo meeyda ayagoo la sii wado meesha toogashada loo sii wado maxaa dadku la wadaag weydeen war idinka aqli ma lihidin miya dadka Soomaaliyeed maskax ma lihidin miya aqli iyo maskax ma lihidin miya aniga oo reer Puntland ba xaq u doodaya aniga oo nin reer Puntland ba waxa rabaa inaan xaq u doodo Caaisho kabar ilma adeer baana nimanka dilan ilma adeer baana waa simanna laba reer oo siman baana marka waa inaan xaq ka sheego way nimanka la leeyahay waa la toogtay ee Caaisha loo toogtay ee waa la dilay subaxii waxa lagu faafiyay baraha bulshada lagu faafiyay way cadeyntoodii maalinkii la dilay nimanka lagu dilo Muqdisho lagu dilo ee shabaabka loo qabsado waa ogtihiin waxa la keenay cadeyntoodii ayagoo la sii wada gaariga la saaray yahay sawirkoodii xabada ayagoo lagu dhufanay lama soo saaro adduunka mamnuuc weeye meel adduunka qof xabad lagu dhufanay la soo dhigaa ma jirto laakiin ayagoo la sii wada la soo dhigaa ayagoo la sii wado oo meeshii tiirkii la geeyay sawirada laga qaada idaacadda laga duubahay maanta maxaa dareemaysaa qofkii la yiraahdaa ma ku qanacsan tahay xukunka lagu xukumay qofkii waxa la weydiiyaa Caaisha nimankii kufsaday waa la dilay adduunka inteeba ka dhacda war dadkan Soomaalida ama dad xoolo ah nimankaas waxa u dhaaranayaa oo u cadeynaya dadka Soomaaliyeed oo kitaab ku maraya kitaab waxa ku maraya inay Turkiga joogan asbuucan hadii Ilaahay idmo waxaan u socdaa meesha la yiraahdo Istanbul waxaan soo xaqiijinayaa nimankaas inay joogan guri laga ii sheegay iyo address-ka la siiyay baan rabaa inaan tago hadii Ilaahay nafta ii daayo waa u socdaa ana soo xaqiijinayo soo kala ogaanay waxa idinku dhaaranayaa maanta in nimankaasi ay nool yihiin nimankii Caaisho dilay inay nool yihiin baan kitaab jaamaca waxa ugu marayaa 700 ee Soomaaliyeed ay daawanaysa baa kitaab jaamaca u maray inay nool yihiin oo aysan dhiman annaga waxa u baahannahay aabagii Ilyas ahaa oo intuu idaacad aan soo fariisto hatta kilinka ha tago Muqdisho ha tago meel Puntland ka baxsan ha sheego xaqiiqada jirtaana la wadaago hadduu nool yahay hadduu sii noolaado way hadda inuu dhintaan buu maleeyo waayo odag waa dhaawac sida warka la isoo sheegay waa dhaawac filinkanna waa filin la rabo in oday Ilyas lagu qariyo way filin oday Ilyas la rabo in lagu qariyo garowe nimankii garowe ku haystay waa iska soo masaafuriyeen maadaama gacantiisa uu ku dhiman karin oo ay ceeb iyo faxshir ku tahay inuu ku dhinto oday Ilyas gacantooda waa la iska soo diray orogaalka ay aad baa la yiraahdo soo staff loo sameeyay waxba loo sameeynin ilaa waxa laga dhigayaa nimankii inay dhinteen waa qorshe ay soo dageen nimanka ilma adeerta nahay ee Puntland ku xaaran way ee tolka aan nahay baa filika jiray gurigii gaalkacay ku lahaa oo ka guuray waagi dhaweyd uu ka cararay ka qaxay oo ciyaalkiisa uu ka rartay intii Caaisho ka yaryareed uu ka rartay buu joogay laba bari uu meeshaas ku nastay wuxuu u joogay inuu guriga iska xaraasho Aaba Ilyas wuxuu u joogay wax kala ma ahan inuu guriga is dhaafiyo oo iska xaraasho oo magaaladaas ka dhoofo wax ka gatuu raadinayay waxa dhacday saaka maanta barqadii in odagaas xilli hadeertan laga joogo hal saac ka hor laga joogo in odagaas lagu helay xaafadiisa laba nin oo khamro ka soo dhargay iyo jaad oo u dhashay reerka waxa way nimankii la lahaa waa la dilay maanta Turkiga jooga
baa waxa xabad odagaas ku dhuftay xabadna lugtay kaga dhufteen xabadna dharkaan iyo mindhicirka kaga dhufteen oo Elias maanta wuxuu yaalaa isbitaal gaalkacyo magaalada gaalkacyo yaalaa waxa weeye dadka gaalkacyo jooga ee halkan iga daawanaya waxaan leeyahay war ordayga gaalkacyo inta tagtaan isbitaalkooda uu yaalaa soo sawira xataa meydkii odaga yaan la qarin waxa loo socdaa wax kale looma socdo wallahi wax kale inaan loo socon in meydka odaga xataa in la qariyaa la rabaa odagaasu wallahi inaa waxa idin cadeynaya oo idinku dhaaranaya inuu odagaasi dhiman uusan nooleena waxaan ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed gaalkacyo jooga inay tagaan isbitaalka gaalkacyo fariin ka soo diraan odaga sawir ka soo qaadaan odagaasi waa sakaraad inay soo sawiraan oo sawir ka soo qaadaan ba u baahanahay oo noo cadeeyaan xaaladiisa iyo meesha ku jiro waxaan kaloo idin cadeynayaa oo idinku dhaaranaya inaan nimankaas la dilin wallahi inaan la dilin ba idinku dhaaranaya oo maanta Turkiga ay joogaan ba kitaab jaamaca ku maraya hadaa aaminaysaan iyo hadiina aaminayn annaga waxaan u baahanahay kow aniga horta cadeyntaas waa raadinaya waxa ballan ku qaadaya inaan Turkiga tago address baa la siiyay Istanbul meesha ka joogaan baa la siiyay nimankaas inaan addresskaas tago inta aysan ka bixin aan ka soo qaado clip oo soo duubo baa ballan Ilaahay ku qaaday waana socdaa asbuucana u socdaa hadii Ilaahay uu ka dhigo taas waxa ka sokaysa intaan taas la gaarin ka hor waxaan rabnaa nimankan dhahaya Puntland anigu ana reer Puntland waxa uu hadli kara shakhsi daacad ah oo dadka dhexdhexaad u yihiin oo cid walba dhexdhexaad u yihiin baa ka hadli kara laakiin shakhsi eexa kama sheekeyn kara Puntland mana ka aqbalayno mana ka yeelayno war clipkan kunkaas iyo 300 ee daawanaysa hal mar inta sheer taabataan dani ha loo geeyo iyo kuwii maxkamadda xukumay iyo baarlamaanka Puntland iyo dadka Puntland ha noo soo cadeeyaan clipkii laga duubay nimankii oo la sii wado intaan la dilin ka hor ha noo soo cadeeyaan hana tusaan hay soo wicin aniga waxa weeye dadka xaq darrada u socda ee tuugada ah ima soo wici karaan teleefankayga qaraacanin hay soo qaraacanin waxa idin cadeynayaa oo kitaab idinku maraya inay nimankaas nool yihiin waxaan rabnaa inay gaarto dadka Soomaaliyeed clipka meel walba uu joogo in Elias uu saxaq helin Aisha la dilin nimankii dilay aan la tooganin maanta ay Turkiga ku raaxaysanayaan Istanbul ay iska baashaalayaan iska raaxaysanayaan baa idinku waa idin cadeynaya kitaab baa idinku maraya waxaan rabnaa maamulka Puntland inay soo cadeeyaan clipkii ugu dambeeyay ee nimankii oo la sii wada subax soo lama qaadin waagu soo bariin Soomaaliya waa la wada sugaya sawirkii nimankii laga qaaday kaamirada laga duubay ayagoo la sii wada inta la dilin ka hor baa u baahanahay dadka Soomaaliyeed inay la wadaagaan laakiin Aisha nimankii kufsay waa la dilay waxa weeye qof bilow aadan oo qaadanaya qof aan aqal lahayn oo jaahil ah oo majnuun ah oo siyaasadda fahansaneen oo waxa fahansaneen mooyaane dadka kale way fahansanayeen wana ogyahay hana la tuso sawirkii hana la tuso nimankii la sii wada clipka laga duubay imise nin baa la dilay oo waxa weeye shabaab ahaa oo dalka lagu dilay Soomaaliya lagu dilay clipka waa la duubay inta la geyn meesha lagu tooganayay kulli waa la duubay maxaa loo soo duubi waay nimankaasi Turkiga joogaan warkooda si xasaasi ah soo gaaray